وردقدق محمد عبد الله فرماجو مدحوينه قرنك أمد الصومالية ugu horeysa waxaan rajeen wuxuu wareejiyay hantidii qaranka oo fiyow oo sideedii isagoo la dardaarmaya oo leh warhooy bariha cunay waxaan kaloo aan kugu wareejiyay in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid oo aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin wax walba cadayn buu ka dhigay iyo marxaati badda murankeedii inay soo afjarantay waxa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay wuxuu ku wareejiyay dhul bad khayraad hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa haday tahay dhismo iyo haday tahay dhulba inaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyay in aysan jirin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulati wa ala wala sadam maan hatta aasha goob kasta iyo goor kasta joogtaa waa barnaamijkeena iftiiminta xogooyinkii arrimaha bulshada maanta isku dul taagino mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed haatanna loogu yeedho ogyahay madaxweynaha shacabka oo maanta xilkiisa cad u wareejiyay hanti maguurta faylal dukumiintiya dhaqaale iyo bangiga ummadda Soomaaliyeed oo 100 milyan ku jirto halka marayo iyo dardaarankii mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo xasan sheekh si toos ah u hadlay oo yiri allahumma balaghtun haderba waxa aan kugu wareejiyay ummaduna waa ku aragtaa ilaahayna waa ku arkaa eegay bal aan daawano oo aan isku taagno madaxweynaha shacabku muxuu wareejiyay ma wax buu xaday ma wax buu liqay ma wax buu musuqmaasuqay ma wax buu isdaba mariyay ma sahanti tiishalay looga tagay saddex jibaarkeed iyo dukumiintiyo iyo hawadii oo dib u soo celiyay iyo badii oo dib u soo celiyay iyo dhaqaalihii oo kor u qaaday Allahu akbar mintu kada yiri ku soo madaxweyne argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajeynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyay sida adigu igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyay in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid oo aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin sidii aan ugu imid ama waxa ka dhinaadeen ama sidooda ha aad sidii aan ugu imi wax isbedel ah oo ku dhacay ma jiro dahab baan la guran dhul baan la boobin dhir baan la gadan waxa weeye musuqmaasuq baan sidii aan ugu imi aan ugu qabtay ayaa kugu wareejinaya oo cad weeye waxba la isu hambayn maayo waxa dhigay magaalo waa madal inta joogtaana waa maray qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed farmaajo wuxuu cadeynayaa wixii lagu wareejiyay oo looga tagay sidoodii loogu yimi ku soo madaxweyne arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhamaatay sanadkii la soo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guuleysanay waxa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay badii oo ku guuleysanay oo aan Kenyaad farahooda kala soo baxnay iyo hawadii Soomaaliyeed oo aan dib u soo celinay halkaas maxay dhinac waa laba arrimood oo la taaban karo oo maxamed cabdullaahi farmaajo ku guuleystay madax ku tida hortooda uu kale yahay ilaahay hortiisa uu kale yahay ummadda Soomaaliyeed hortoodana uu kale yahay inuu badii dib u soo celiyay oo Kenya ka soo dhiciyay hawadii ummadda Soomaaliyeed ee Kenya lagu maamulan jirayna ummadda Soomaaliyeed soo gacan galiyay waa laba guulood oo maanta ku baanayo ku soo hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa haday tahay dhismo iyo haday tahay dhulba inaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyay in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyay sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysanaa sharci dhammaystiran dhulku waa meesha ugu daran ee xasan iyo kooxdiisu boobi jireen meesha ugu daran weeye oo dhulku ifisiyoole dhulka airport dadka masaakiinta laga kicin jiray ma 10 boos iyo 20 boos ee xukuumaddiisa baa qabsaday farmaajo wuxuu leeyahay wasiir xukuumadda ka tirsan iyo ra'iisul wasaare xukuumadda ka tirsan iyo aniga laftaydu bari baan u qanaa dhulkii ummadda Soomaaliyeed waa ku wareejiyay roobla marda macaynu xoogaa hafsiisto ati laga qabto wali balad ku dhacday inaan kala yaqaan dib gudi waa daacadnimadii oo qof ah
ووطنية أو قفة oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay fursad uga helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arinta Somaliland waxay ahayd qadiyad Somaliland waxay ahayd iyo arinta Somaliland wax soo jiitamayay oo madaxweynihii ka horeeyay aad ka dhaxashay adigana aan ka dhaxlay iyadana u baahan dhamaystirka midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaa soo faylad ah ee dukumeentiga ah ee waxa weeye khayraad bad ah ee khayraad dhul ah ee shidaal ah ee waxa weeye ummadda Soomaaliyeed leedahay dukumeentiyada dib loo arki maayaan u maleynaya dib loo madax ku tibaan aqaana hadday saxdaan ay soo toosan waayay oo dib loo arki maayo Somaliland oo reer Somaliland mid meedisaya reer Hargeysa reer Qoxob waxa weeye markii hore baa la qaatay baasha oo meel fiican bay fariiso soo dhawaajo jiid iyo abaajiri waraaf libaax gelin Somaliland reer Hargeysa reer Qoxob af libaax gelin Hargeysa af libaax gelin nin maxaan cunaa liidado waddanka maxaan liqaa baa yimi beegi farmaajo yaa ka cararaysan oo laayeen uu ninkan waa dictator oo iska miskiinka ah iska aamusnaa oo cararayo lahayd waxba naga xiriyo waxba naga dhigay awal ba shacabku mar walba iyagu dulmanay ahaayeen shacabka Soomaaliyeed mar walba iyagu waa dulmanay meel kasta baa joogeen laakiin ka daro dib dhal mid kale oo ka sii daray dibnahaaga Soomaali waana lagu dacwoonaya hadday ribatayba hadda ayay ribatay hadda hore u soo fariisataan ninka oo aad la macaan hadday ribatayba waxaan kale oo aan kugu wareejiyay codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno Security Council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadaan u fariisano kursigaas 2025 waa qabka koor Security Council-ka qaramada midoobay inaanu ka mid noqono wadamada amniga iyo iskuuladka iyo adduunka loo doorto macnaha kursi inaanu ku yeelano hasa shaqna hadda dhulka bilaabaya helo dardarooli dunya gaarsi dareertaysi dardarooli dunya gaarsi dareertaysi maxaan cunaa ceebiyelkeeda hadday bilaabanaysaa ma ninkan Security Council iyo qaramada midoobay iyo ciidan la dhisay iyo ciidan qalabiyay iyo awood iyo khayraad iyo amar diido adduunka la tartaba iyo ciidamada tababar iyo waxa uu ninkan ka fakarayaa farmaajo ninkan loo xulay maxaan cunaa ceebiyelkeeda muhiimada bahaa keen dalam وشاب بقول لكم بها محل ربا دلو حال ربا شيء إلا شيء تربر واحد هان سا أنتوا يقولون بلا شيء إلا شيء معناه هو شري 10 ميل معناه لو 10 كيلومتر سكوير ربا شيء إلا شيء للي شاب بقول لكم بها محل شيء إلا شيء دام بقول لكم بها كين حراش في حوالي taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tagay wadda Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo 51 sano ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin kamid ah hal mar kaliya waxa kale oo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo una qabateynta hubkan saaran ama arms embargo baan kugu sii daray buuleey waxa fayla loo dhiibay waa dokumentiyo 46 sano ninkaas joogay uu ka shaqeynay oo qangan kala haystay naga soo bax farmaajo soo bax farmaajo maxaan waa madax ku tidii oo gaaja laysay oo halka la qabtay 6 sano waxay la qeynayeen in faylasha iibsadaan wadaaki doontaan xasan sheekh maalinta uu ka dago kursiga 4 sano eega aan ugu tirinayno maalinta uu ka dago waad arki doontaan madaxtooyada waxa loogu tagi doonaa madaxtooyo macal quraasti ka maqan quraasti iska dageed lagu beeray iyo bangi faaruq ah eegi iyo adduunku ina bahdila oo maalin walba fayl aynu leenahay dukumeenti aynu leenahay lagu horjarjaxo taas aynu dhaxlaynaa iyada nafteeda ku jirta arinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn hadee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walba dhibaato u tahay marka arintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhamaystirto arinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyay faylashan ku siiyay
waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada naftigeeda deen cafintii hadda dhibaata baa laga haystaa caalamkii deynta inoo haystay ee rabay deynta inuu laga cafiyo hadda bad bayba keenayba qolihii bangiyada waxay yidhaahdeen maxaa sababta dacwad baa xitaa laga gudbiyey safiirka Dubai oo bangiga adduunka kaga gudbiyey iyo hay'adda lacag bixinta caalamka iyo deen cafintu waxay yidhaahdeen sababta safiirka imaaraadku u tagay bangiga ummadda Soomaaliyeed ayaanu rabnaa oo wasiirka amnigu intuu u kaxayay iyo ra'iisul wasaare Roble ay bangiga u tageen oo ay lacagta uga soo baxay hadda safiirka imaaraadka lagu yeeray waa baxay imaaraadka u yeeray bangiga adduunka dacweeyay imaaraadka dacweeyay sidee baa yiri nin ajnabi ah oo safiir ah sidee u tagi karaa bangi dawlad qaran ah ay leedahay oo ummadda Soomaaliyeed leedahay oo lacag uga soo bixi karaa hadda bangiga adduunka wuxuu taagan yahay ma aamini karna baday maxaan ku aaminaa baday maxaan badeen cafiniyo galna maxaan dadkan la soo kiciyaa lacagtii bangigii baa safiir iska galayaa lacag iska soo baxaya waa arrin xaqiiqo ah oo jirta waadna baari kartaa qof walba waa baari karaa Facebook ku jirta website-yada dhan bay ku jirta New York Times bay ku qoran tahay bangiga adduunku wuxuu yiri dacwad wuxuu dhagaha u suray safiirka yaa ku tag bali safiirka imaaraadka lagu yeeray Dubai baa lagu yeeray markiiba halkaas aan ugu maxkamadaynaya oo leeyahay maca bad baan garisay bangiga adduunka haysta imaaraadka khalkhal ku furan see loo aamini karaa ma deen cafintu goor ma imanaysaa shilinkii la soo dhigay hadii hafla siinayo meesha waxa weey madax ku tagtay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha Allah haday hawshan socoto waa huba inay soconayso aad wadayso dhamaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deemaan la cafiya haddaanu meel sii galeynaa farmaajo aduguna sakhiraya noqotay madaxweyne wixii baad noo sakhiraysaa madaxweyne maxaa waxna laga cafiya haddaanu meel galeynaa meel baanu galeynaa niyada u dhisaysaa waxa leedahay bal qof haska dhigo waxa ay dukumiintiyada iyo adduunka iyo maalintii kugu wareejinayay kursiga kugu wareejin khudbadaana ma soo jeedin faylashaana nama tusay maxaa yeelay meesha meel marab bay madaxtooyada bila kuraas ahay haddaanu meel hor dhigayna nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan iraahdo ama dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo 5 sano taageerada ay taageereen ee sida dhow oo Soomaalinimada leh oo waaltinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub hadduu wanaag iyo khayr aanu ku ognaa waa la shaqeyn lahayn ceeb ma ahaatee hadda hadduu leeyahay waa isbedelayaa oo waxbaan hagaajinayaa oo wax khayr aan ka aragnana waa la shaqeynaynaa laakiin wuxuu yiri doqonkii jiray maxaa laga doondoonay bariba soo lumi maayo xasan waa xasankiisii madaxweyne farmaajo waa nin qalbi fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala barbaad haynoo soo celiyey waataa maanta dukumiintiyadii wax walba uu qabtay oo 5 sanadood 6 sanadood ninkaasi uu qabtay iyo meesha ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyey iyo waxaas hal bacaad kulis bay noqonayaan hal bacaad kulis waa ogaan doontaan maalinta ninkaasi xasan meesha uu ka baxayo waxaan ku yiri madaxtooyada aad moodid إلا يري نول بكرسي أجاسمها أقول يرو كرسي هون وش قادرين بلغة حنا عشان في لغة بلغة في لغة مودد لحلة قضايا في رقيح ولو يدو ساق قرار مودد أقل صومالي ركي لقيت شيء معه أو شرع علاقة قاعد بحنحن إيه وبلا كبده بلوت لي ده هذا إله لقى وقت مستوي هدي له شو هدينا الحمد لله رب العالمين بالك سيشر كنا برامج وبرامج في جبت حمل خير ما بشتري بقى عشان برد تاني تدوك الموضوع حتى العشرة كان سبسكرايب كيلاوي جنبريل كفرو لايك تكبر أكتب كومنت يقول ورسلنا بدينه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى